النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه مركز عدوغاga iska hor timaadaan saddex arrimo saddex options mid kasta oo ay u fududaato oo yeelaana ka aqbal daan hala dagaalamay waxaad fiirisaan qof kula dagaalamay oo option la siinay war dagaalka jooji wariyaynan istilin warsaan haddaan ku wada noolaan karaa aan ku wada noolaano warsaan haddaan ku wada noolaan karaa aan ku wada noolaano warsaan haddaan ku wada noolaan karaa aan ku wada noolaano options la siinayo waxaad arkaysaa waa rasuulka sallallahu alayhi wasallam qofka waxaa sameynaya waxaa ka daran intaasoo dhan wuxuu nabigu amray sallallahu alayhi wasallam haddii dagaalka dhexdiisa xataa lagu jiro inaan nin oday aan la dilin oo qof dumara aan la dilin oo cunug yar aan la dilin oo nin iska cibaadaysanayo oo raahib ah aan la dilin dadda waxay u haystaan dadka diimaha kala haysta inay cadow u yihiin muslimiinta yuhuudi ama kristaan wuxuu yahayba hadduu qofku meel iska cibaadaysanayo dagaal uusan ku jirin hadilna ha taaban